Ismail Omar Gele, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's a great honor and privilege to attend the opening ceremony of this regional research center on the environment and the climate. mudane madaxweyne Ismail Omar Gele ergooyinka sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin waxa farxad iyo sharaf weyn ii ah inaan ka soo qayb galo xafladda furitaanka xarunta cilmi baarista deegaanka iyo isbeddelka cimilada. On behalf of the government and the people of Somalia, aniga oo ku hadlaya magaca dawladda iyo kan shacabka Soomaaliyeed waxaan uga hambalyeeynaa dawladda Djibouti iyo shacabkeeda martigelinta shirka la qabsiga iyo adkeysiga isbeddelka cimilada iyo deegaanka. waxaan ku jirnaa xaalad abaareed midii ugu darnayd kadib markii 4 xilli roobaad oo xiriir ah ay baaqdeen roobabkii taasi oo ugu wacan tahay saameynta isbeddelka cimilada. cilmi baarisaha la sameeyay ayaa xaqiijinaya in habdhaqanka bini'aadamku uu si weyn uga qayb qaatay xaaladda hadda jirta ee deegaankeena iyo cimilada sii xumaanaysa. saameynta isbeddelka cimiladu waa mid aad halis u ah waxayna u baahan tahay tallaabo adag oo ka timaada siyaasadda gobolka iyo go'aan qaadasho loo dhan yahay si loo xakameeyo isbeddelkan. isbeddelada baaxadda leh ee gobolka bariga Afrika ka dhacay sanadihii u dambeeyay waxa ay muujinayaan muhiimadda ay leedahay in hore loo dhaqaajiyo qorshaha ilaalinta deegaanka iyo ka hortagga dhibaatooyinka isbeddelka cimilada si ay mustaqbal wanaagsan ugu abuuraan jiilasheena soo socda. in ka badan 10 milyan oo qof oo ku nool gobolka geeska Afrika waxa saameeyay cunto yari. hay'adaha bani'aadamnimaduna waxa ay la tacaalayaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen baahida sii kordhaysa xilli ay sii yaraanayso taageerada caalamiga ah ee ay helayaan. xooluhu waa isha ay ku nool yihiin xoolo dhaqatadu waxayna ka qayb qaataan dakhliga dawladda. waxa shaqo ka hela dad badan oo xirfadlayaal ah waxaana kaloo ku tiirsan adeeg bixiyaal badan. xoolo dhaqatada waxa si toos ah ugu tiirsan 55% wadarta guud ee xoogga shaqaalaha iyaga oo fursad dadban u ah qaybaha kale ee muhiimka ah ee ka mid ah shaqaalaha. tallaabooyinkii ugu horeeyay ee aan qaaday kadib dib u doorashadayda waxay ahayd inaan abuuray wasaaraddii ugu horeysay ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada dawladda federaalka. waxaan sidoo kale bilownay olole heer qaran ah oo ku saabsan cagaaraynta Soomaaliya iyadoo aan beerayno 10 milyan oo geed si aan u xoojino daryeelka dhirta, dib u cagaarinta dalka iyo kobcinta wacyiga dadweynaha ee ilaalinta deegaanka. isbeddelada baaxadda leh ee dalku uu soo maray sanadihii u dambeeyay waxa ay muujinayaan awoodda ay u leeyihiin in dadku ay horumariyaan dalkooda si loo gaaro himilooyinka dalkeena ee mustaqbalka wanaagsan. mustaqbalka wanaagsani waxa uu ka bilowmaa horumarinta iyo ilaalinta deegaanka. dhibaatooyinka la xiriira cunto yarida, magaaleynta reer guuraaga ee degdega ku socota iyo maciishadaha qaaliga sii noqonaya waa caqabado sii kordhinaya saboolnimada iyo gaajada. waa sababta ay muhiim u tahay in gobolka iyo gaar ahaan dalka laga sameeyo xarun cilmi baariseed oo sidan oo kale ah si loo xoojiyo ilaalinta nolosha bulshada xoolo dhaqatada ah ee dalka iyo guud ahaan dalalka gobolka. abaaraha soo noqnoqda 2 ama 3 sanaba mar iyo roob la'aanta xiriirka ahayd 4 sano ee u dambeysay waxa ay sababtay in maciishadii ay kor u kacdo dadkiina ay barakac ku noqdaan gudaha magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. barakaca iyo hayaanka uu sababay isbeddelka cimiladu waxa uu hadda noqday caado cusub oo gobolka ku soo xoogaysanaysa. xaruntani waxay kor u qaadi kartaa fahamka si loo dhimi karo saameynta isbeddelka cimilada ee dalka iyadoo oo loo aqoonsanayo hababka waara ee looga gudbi karo xaalufka deegaanka ee ugu sii dartay isbeddelka cimilada. mudanayaal iyo marwooyin waxaan mar labaad u hambalyeeynaa dadka isku soo dubariday xaruntan oo noqotay tii ugu horeeyay ee nooceeda ah ee deegaanka laga hirgalsho iyo hoggaanka u igmaday inay tani noqoto mid dhab ah. dhammaantiin waa mahadsantihiin. And thank you very much.